السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو داود يكون سودو مركاسي تاريخ كوبان أو كهل دونو قبل اللي راضي حليم هاتو انتنا المقال هذا بوجودها وسيقلين وعقا عطنيا المقال كليك تارتد هدون جانلك سبسكريب كوهينا سبسكريب عديد آدي ما سنتهي داودي هذا بوحة مودوغن مركاسي قبل اللي راضي حليم هاتم امتحانا كورلس عثمان مركي ugu أرقنا أي هايب سيسنكي أفراد iyadoo waqtigaasi aad ay u yartahay aragtidii labaad ee inoogu xigtana waxay ahayd soo muuqashadii ka soo muuqatay seasonka lixaad iyadoo waqtigaasi aan arkaynay in seasonka ka soo gashay aray u qabto waalidkeed waa Baala Khatum sidoo kale Mudan Uthman sababteedana ay lahayd gabadha leerada Sofia kadib markii ay ku soo korisay caro iyo ciil taasi oo ay kala dhacsiisay in markaasi waalidiinteed iyagu ay laayeen ugu dambeynna waxa wada ogeyn in markaasi isla seasonka dhexdiisaba gabadha leerada Xaliim Haatum ay ogaatay xaqiiqada waxay tahay in Baala Khatum iyada ay dhashay hadaba daawade waxa soo diinaysa oo isdhaysa gabadha leerada Xaliim Haatum waxa ay soo martay nolol aad u adag maadaama taxanaa Kurlus Cusmaan uu ku saleysan yahay taariikh xaqiiqo ah oo qoran balse ugu daawade Maxamed Bozdak waxa jirta waxyaabo fara badan oo markii la yiraahdo xukunka dawladda Uthmaaniyiinta aan meel ka soo galaynin oo markaas lagu dhaxarkayo iyaga oo ku jira waliba baaldahaba ka qaadanaya qaladkii u horeeyay ee markaas soo muuqdayna waxa uu ahaa Mudana Bamsi Beerah waxaan wada ogeyn ilaa Ardoqral markaasi inuu ka soo mid ahaa waliba uu saaxiibka ugu dhawaay markaasi Mudan Ardoqral halka Mudana Uthman Beyna uu ahaa garabkiisa iyo sidoo kale qof waxyaabo fara badan ka caawiyay hadaba daawade waxa weydiinaysa ninka la yiraahdo Mudana Uthman Ardoqral iyo sidoo kale Mudana Bamsi Beerah maxaa markaasi kulmiyay daawada taariikhda saxda markii loo laabto Mudana Bamsi iyo sidoo kale Mudana Ardoqral iska wada Mudana Uthman ayna ahayn kuwa isku soo dhawaada ama isku xilliye ahaa saasay tahayna maadaama Mudana Bamsi Beerah markaas taariikhdiisu gaar ay tahay oo libaax haliyay oo ahaa oo taariikhda Turkida baaldahaba ka qaatay si markaas magaciisuuna u dhumin ayaa markaas taxanaha lagu soo daray su'aal markii laga weydiiyay lagu yiraahday Mudana Bamsi iyo Mudana Ardoqral xagee iska soo galan waxa uu ku jawaabay waan ogahay inay isku xilliye ahayn balse maadaama Mudana Bamsi waa haliyay taariikhda Turkida baaldahaba kaga jira waxaan diiday taariikhdiisu in ay lunto maadaama ay keligii aan gooni la soo qaadan kareenin si markaas aan taariikhdiisa iyo magaciisa dib aan ugu soo noolayno taxanaan aadka loo xiiseeyay ee daawashada badan leh ayaan markaasi taariikhdiisa ku barinay jiilka soo kacaya ayuu kaga baxsaday taabadalkeeda Maxamed Bozdak markan waxa uu leeyahay gabadha la yiraahdo Xaliim Haatum waa gabadha dhashay Baala Khatum iyo sidoo kale Mudana Uthman balse daawade hadalkan soo si aad si fiican ugu qanacdid oo adan mar dambe raadin taariikhda Xaliim iyo waxa aadan sii galin waxaan doonayaa inaan kula wadaago dhowr arrimood Xaliim Haatum Ardoqral Qaasi xaaskiisii tan waxa la dhihi jiray Xaliim Haatum waxa ayna ahayd Mudana Ardoqral xaaskiisii iyo sidoo kale Mudana Uthman iyo Gunduus hooyadood ay ahayd laakiin ma ahayn gabadhu dhalay Mudana Uthman daawade sidoo kale waxa jirtay Hayme Ana waxay ahayd Mudana Ardoqral hooyadii ayay ahayd sidoo kale waxa qab jiray markaasi Suleymaan xaaskiisa ayay ahayd mana ahayn gabadh markaas uu dhalay Mudana Uthman sidoo kale waxa jirtay Hatiis Xaliim Haatum ayaa jirtay Hatiis Xaliim Haatum waxa ahayd markaasi boqorad ayay ahayd boqoradaas oo guursaday Suldaan Muraadkii labaad taasina ma ahayn markaasi gabadh uu dhalay ninkii la yiraahdo Mudana Uthman sababta waxyaabaha fara badan la su'aalash kugu soo qaadanaya waxay tahay fiican aad u qanacdid maadaama markii dhamaantiin inaad wada xiiseynaysan inaad ogaataan taariikhda gabadha la yiraahdo Xaliim Haatum sababta loo xiiseynayna waxay tahay gabadhan iyadoo muslim ah waxa afduubatay gabadha la yiraahdo Sofia taasoo noogeyn markaasi inay aad ugu adag tahay dhanka diinta sidoo kale waxaan wada ogeyn in markaas gabadhan ciili cuqdad ay u qabtay waalidiinta inay koow ay ka siiso sidoo kale waxaan wada ogeyn dhamaanteen yaraanteed inaan weynaanteedina aan aragnay qof kastaana waxa uu xiiso u qabaa oo uu doonayay inuu ogaado gabadha la yiraahdo Xaliim Haatum nolol noocee ah ay ku soo kortay hadaba daawada xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay markaas in najin gabadh la dhihi jiray Xaliim Haatum taasi oo markaas Mudana Uthman iyo Baala Khatum ay dhaleen waa sida markaas taariikhiyahanadu ay qabaan ma jiraan xitaa ila kale oo sheegaya in Mudana Uthman uu dhalay gabadh kale marka laga reebo gabadha la yiraahdo Faatuma Haatum Baala Khatum Mudana Uthman kaliya waxa uu dhashay wiil la yiraahdo Calaadiin Cali Baasha kaasi oo ahaa
dhakhtar dagaalyahan iyo sidoo kaleete saynisyahan. haddaba daawade in badan ayaa laga yaabaa markaas inaad isweydiisid gabadha la yiraahdo Xaliima Hatum maxaa laga wadaa. daawada hadda gabadha la yiraahdo Xaliima Hatum waxaa markaas taxnaan loogu soo diray laba arrimood in taxnaan markaas muuqaalkiisa kor u kaco ama daawashadiisa kor u kacdo iyo sidoo kaleete in xiisa uu yeesho maadaama gabadha la yiraahdo Xaliima Hatum ay soo korsatay gabadh la yiraahdo Sofia waa sida markaas taxanuhu uu dhigan yahay Baala Hatumna ay hooyadeed. daba markaas arrin wareer la ay noqon doontaa qof walba waxa is weydiin doona gabadha la yiraahdo Xaliima Hatum ay raaci doontaa ma hooyadeed ay dili doontaa iyo aabaheed mise gabadha Sofia la yiraahdo ay ku jeesan doontaa inta xaqiiqada ay ogaato. inta dadkaas ay ku mashquulsan yihiin ama daawadayaasha ay ku mashquulsan yihiin arrinkaasi ayuu markaas taxanuhu u tagayaa oo helaya daawasho fara badan. Maxamed Boosagana arrinkan aad ayuu ugu ceebisan yahay si walba u raadis taariikhdana ma helisid markaasi gabar la yiraahdo Xaliima Hatum taasoo dhashay Baala Hatum. haddaba daawade waan u dhammaantii inaad yaabantihiin balse ha yaabina Maxamed Boosag wax walba oo ka suurtoobaan markan aan isla eegna bal background-iga Marwa Baala Hatum. Baala Hatum hadba sida aad wada aragtaan daawadayaal waatan waa xilligii ay dhalatay xilligii ay dhimatay aabaheeda ciyaalkeeda xitaa ninkeeda way ku jiraan. ciyaalkeeda kaliya waxa markaas ay ahaayeen nin la yiraahdo Calaadiin Cali Baasha oo wada garanaysan waa Calaadiin Bey. markaas Calaadiin Bey ma jirin gabadha dawlad dhalatay sidoo kale Baala Hatumna ma jirin qof kale oo dhashay. Calaadiinna oo kii hore ku sheegay Marwa Baala Hatum waxay dhihi jirtay waa jawaabta ducadeedii. haddaba daawadayaal waxaan rajaynayaa dhammaantiinna in mar dambe ninka la yiraahdo Maxamed Boosdag indhihiina una sarxi doonin arrintan jacaylka ah ee murugta ah iyo sidoo kale tabaday gabadha la yiraahdo Xaliime ee u dhaxaysa Baala Hatum iyo sidoo kale Sofia inaad ogaan doontaan in kaliya ay tahay gabar markaas iska filinka taxanaha Kurulus Cusmaan oo iska jirta. haddaba daawada dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad wada ogaateen xaqiiqada waxay tahay iyo in gabadha Xaliima Hatum la yiraahdo markaas Mudane Cuthmaan iyo Marwa Baala Hatum midkoodna raad ayna ku lahayn. daawada intaas ayaan muuqaalkiina ku soo gabagabeynayna maadaama muuqaalkeenu kaliya ku saabsanaaba inaan idin dareensiiyo xaqiiqada waxay tahay gabadhan Xaliime la yiraahdo aadna u wada xiisaynaysan taariikhdeedana aan markaas idin sheego inay tahay gabar Maxamed Boosdag kaliya oo filimkaas kaga macaanisanayay. haddaba maanta muuqaalkeenu inta ayuu ku egyahay waxaan jeclahay markaas muuqaalka in like aad saartay maadaama xaqiiqo badan aad ku ogaatay sidoo kale channelka aad subscribe ku ahayna subscribe aad dhahday. haddaba daawade inta inaan ismaal salaamaynin qofkii ayaa jeclaan lahayd markaasi inaan muuqaalkeeda ku soo qaadano oo aan taariikhdiisa kaga hadalno. haddaba daawade waxaan rajaynayaa qaybta commentiga inaad qof muhiim ah aad ku soo wada qori doontaan aad ayaad mahadsantihiin. waxaan idin leeyahay insha Allah inagu turadii 20,000 sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.